sanadka cusub waxaa jiri doona dad badan oo dayaxa u kicitamaya si ay dayaxa u soo sahmiyaan iyadoo sanadkii kan ka horeeyay ee 2021 aysan jirin cid caga dhigatay dayaxa. NASA waxa ay bilaabi doontaa barnaamijkeeda Artemis waxayna kafaalo qaadaysaa tiro howlgallo ah si ay u gaarsiiso qalabka iyo saadka dayaxa oo ay u isticmaali doonaan cirbixiyeennada mustaqbalka dhow. Hindiya, Japan, Ruushka, Kuuriyada Koonfureed iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale bilaabaya howlgallada dayax gacmeedka ee sanadkan cusub 2022. Dhammaan duulimaadyada hawada sare loo dirayo waxay noqon doonaan kuwa aanan dad la socon, waxayna u gogol xaarayaan sida mustaqbalka dhow ay dadka si joogto ah u joogi lahaayeen dayaxa wax ka yar 10 sano ee soo aadan. laakiin xitaa taasi maahan hadafka kama dambaysta ah. Saamaynta xarunta dayaxa dushiisa waa un tallaabo loogu gogol xaarayo sidii sahan loogu diri lahaa meeraha cas ee Mars, sida uu qabo mid ka mid ah cirbixiyeennada oo ka tirsan jaamacadda Bristol ayaa sheegay in uu sanadkan uu bilaamayo tartan cusub oo dhanka hawada sare ah, kaasi oo ay ku lug leeyihiin sanadkan dowlado cusub kuwaasi oo quwadooda hawada sare tijaabinaya, iyagoo qaar badan oo sahmiyaashaasi ka mid ah loogu gol leeyahay in la baaro dayaxa qudhiisa. waxaa sidoo kaleeta jira sahmiyaal kale oo ujeedkoodu uu yahay mid taas ka fog oo ay doonayaan in ay u sii gudbaan meerayaal kaleeto oo dayaxa ka sii sarreeya. howlaha qaarkooda waxay leeyihiin indhayn waqti dheer ah. howlgallada dayaxu waxay caddayn u yihiin fursadda iyo tijaabada lagu doonayo in lagu gaaro teknolojiyadda cusub ee sanadkan, ayaa lagu sheegay warbixin ay soo saareen khubaro ku takhasusay dhanka hawada sare. haddaba muxuu yahay sahanka daran ee loo yahay hawada sare? maxayse tahay ujeedkiisu? sahanka Artemis 1 iyo Capstone ee NASA waxa uu hiigsanayaa in uu bini'aadamka uu ku soo celiyo dayaxa marka la gaaro sanadda 2025. bisha Maarso ee sanadkan ayaa la bilaabin doonaa sahanka Artemis 1 oo yahay hadafkiisa ugu weyn in dayaxa sahan buuxda lagu soo sameeyo. sahankan ma jiri doono dad hawada u raacayo marka laga reebo robot kursiga xakamaynta fadhiisan doono. qalabka hawada sare wax u gana ee magaciisa loo soo gaabiyo SLS ay leedahay hay'adda NASA ayaa ah gantaalka ugu awoodda badan adduunka, kaasi oo ridi doona howlgalkan. waxa uuna qalabkani hawada sare uu ku wareejin doonaa dayax gacmeedka Orion si uu u tijaabiyo badbaadada shaqaalaha saaran qalabkan hawada loo dirayo. sanadkan waxaa kale oo la arki doonaa qayb kale oo muhiim ah, taasi oo ka mid ah barnaamijka Artemis oo qaadaya tallaabooyin muhiim ah oo dhanka hawada sare ah. ujeeddadu ayaa waxay tahay in la hubiyo badbaadada cirbixiyeennada ee safarka mustaqbalka 10 sano ee soo aadan lagu tegi doono dayaxa. hadafka ugu dambeeya ee arrintani ayaa ah tagista Mars. NASA ayaa yoolkan ku tilmaamtay mid ujeedooyin fara badan leh oo lagu doonayo in dayaxa lagu meeraysto si ay suuragal u noqoto in waqti fog ay bini'aadamku ay dib ugu laabtaan sagxadda dayaxa. haddii wax kasta ay dhacaan sida la qorsheeyay, Artemis 3 ayaa sanadda 2025 lagu wadaa inuu noqdo sahankii ugu horeeyay ee dayaxa taga wixii ka dambeeyay sahankii Apollo 17 kaasi oo tagay sanadii 1972. sahanka ayaa sidoo kale la qorsheeyay in ay ka mid noqoto haweeneydii ugu horeysay oo cirbixiyeen ah iyo qofkii ugu horeeyay oo aan caddaan ahayn kaasi oo dayaxa lugihiisa soo saara. Dr. Hannah oo ah saynisyahan meerayaasha ku takhasusay oo ka tirsan jaamacadda Central Florida ayaa sheegay in sababta dayaxa diiradda loo saarayo ay tahay in la gaaro himilooyin waaweyn oo ay ka mid tahay in hawada sare ay cid weliba ay tagto. qalabka sahanka ah ee loo dirayo dayaxa waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu horeeya ee lagu doonayo in dayaxa saldhig looga samaysto, ayuu yiri doctorkan. marka laga soo tago naasada Mareykanka, sahamada kaleeto ee sanadan la qorsheynayo ayaa waxaa ka mid ah sahamo ay samaynayaan dalalka Hindiya, Japan iyo Imaaraadka Carabta. qaramo kaleeto iyo shirkado kale ayaa sidoo kale sanadkan isha ku haya sidii ay dayaxa u soo sahmin lahaayeen. qaar ka mid ah waxa ay samaynayaan cilmi baaris, halka qaar kalena ay doonayaan in qalab iyo agabyo kaleeto ay u diraan dayaxa. 2 sano kadib markii lagu guuldareystay in dayaxa lacaga dhigto, ayaa ururka cilmi baarista ee dalka India ee magacooda loo yaqaano Indian Space Research Organization wuxuu haatan qorsheynayaa in mar kaleeto dayaxa uu sahmiyo, isagoo markan samaynaya howlgal loogu magac daray Chandrayaan 3. Japan ayaa sidoo kale doonaysa in sanadkan 2 mashruuc ay ka soo fuliso dayaxa. hay'adda hawada sare ee dalka Japan ayaa qorshaheedu uu yahay
in ay qalab u dirto dayaxa marka la gaaro Abriil 2022. Shirkadda hawada sare u qaabilsan Japan ee Space ayaa sidoo kaleeto qalab u diri doonta dayaxa marka la gaaro bartamaha sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022. Imaaraadka Carabta ayaa dhankeeda sanadkan waxa ay qorsheynaysaa in howlgallo aan caadi ahayn ay ka fuliso dhanka hawada sare, iyaga oo Imaaraadka Carabta doonaya in markan dayaxa agab ay geeyaan. Dalalka Ruushka iyo sidoo kaleeto Koonfurta Kuuriya ayaa dhankooda howlgallo cusub ka fulinaya hawada sare. Ruushka ayaa doonaya in uu sahan uu ku sameeyo dayaxa, kaasi ugu magac daray howlgalka Luna 25. Sahankan ayaa noqon doona kii ugu horeeyay ee dalkaasi uu ka sameeyo dayaxa dushiisa muddo 45 sano ah, waxaana lagu wadaa inuu noqdo howlgalkii ugu horeeyay ee uu ku dego cirifka koonfureed ee dayaxa, halkaas oo sidoo kale ah aagga ay NASA ay doonayso inay u dirto sahanka ay dad la socdaan oo aanan ku koobnayn qalab keliya. Wakaaladda hawada sare ee Ruushka ee magaceeda loo yaqaano Roscosmos ayaa qorsheynaysa in sahankaasi ay dayaxa u dirto marka la gaaro Julaay sanadan aynu ku guda jirno 2022. Hay'adda Kuuriyada Koonfureed u qaabilsan hawada sare ee loo yaqaano The Korea Aerospace Research Institute ayaa iyaduna waxa ay sanadkan ay qorsheynaysaa in marka la gaaro Agoosto 2022 hawada sare ay gaarto. Hay'addan Kuuriyada Koonfureed ee magaceeda loo soo gaabiyo KBLO waxa ay daraasad ku samayn doontaa oogada dayaxa oo waxa ayna ka caawin doontaa qorshayaasha howlgallada mustaqbalka ee cirifyada kala gedisan ee dayaxa. Robodyada ganacsiga ee NASA, shirkado gaar loo leeyahay ayaa iyaguna qayb ka ah tartankan dayaxa loogu jiro marka loo eego barnaamijka NASA ee lagu magacaabo Commercial Lunar. Shirkaduhu waxa ay doonayaan in ay tartanka ay kaga qayb qaataan robodyo ayaguna dhankooda hawada sare loo dirayo. Haddaba maxay tahay ujeedada guud ee ka dambeysa sanadkan tartanka xoogaysanaya ee sahanka loogu jiro hawada sare? Dr. Sargent ayaa sheegay in qaar badan oo iyaga ka mid ah ay baaritaan ku samayn doonaan jawiga dayaxa, iyadoo ujeedadoodu ay tahay in la helo habab lagu ilaalinayo shaqaalaha iyo qalabka wax kasta oo khatar ku ahna oo ay ka mid tahay boorka dayaxa iyo dabaysha xooggan ee qorraxda looga hortagayo. Howlgalladan waxay sidoo kaleeto ay siinayaan saynisyahanadu fursad ay ku tijaabinayaan nooca qalabka iyo tijaabooyinka ay ku dhex isticmaali karaan dayaxa. Waxaan rabnaa in aan hubinno in ay mashiinadani shaqaynayaan ka hor inta aanan u dirin howlwadeennadeenna, ayuu yiri doctorkan NASA ka tirsan. Ugu dambeyntii, sahaydan ayaa loo isticmaali doonaa in lagu gaaro dayaxa sare, waxaana si toosa sanadkan cusub ee 2022 dhammaan dowladaha ay u wada geli doonaan dhanka iyo tartanka hawada sare.